السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا iska waramaseetiin ma fiican tihiin alxamdulilah shukri lilah ilaaha mahadda iska leh meel kastoo adduunka joogtaan waxaan idin leeyahay waqtigiin waqti wanaagsan allah idinkaga dhigo alxamdulilah anaga waa idin wanaagsannahay maanta maxaan maanta wadaa maanta tiiraanyo ayaan wadaa waxaad moodaa waayahanba tiiraanyada iyo calolxumada iyo oohinta iyo dhibaatadaba inay nagu badan tahay oo ay ku sii badan tahay waliba wadankeena caasimada magaalo madaxda caasimada muqdisho inay dhibaatadu ayada aad ugu badan tahay ayaa moodaa hadan maaragtay marka waxaad moodaa inay dhibku oo soo badanayo maalinba maalinta ka dambeysaba tii shala la sheeg mid kasii calool xumo badan in maantana la wado ayaan arkaynaa waxaan ilaahay uga baryaynaa horta marka ugu horeyso inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay qabrigeed u nuuriyo kitaabkeed midigta ka siiyo qabrigeed u waasiciyo awlaadda ay ka tagtay iyo dadka ay ka tagtay iyo ehelka ka tagtana samri iimaan ilaahay ka siiyo waxaan leenahay mar labaad mar saddexaadba inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun waa geeri naxtin le waa maaragtay geerida waa xaq laakiin way kala xanuun badan tahay hooyo ilmaheeda korsanaysay u adeeganaysay u qutulyan u raadinaysay maanta ayada oo maaragtay dhibaato dad u geysanin oon cidna caayin cid cadaabin in layska dilo inta qoray wiil yaroo kuray ah inta iska soo qaato oo bararac isaga siiyo baas iskaga furo macno la-aan oo maalin walbaba ay bulshadayni sidaa loo dilo inta baryahan horta maba sheegi karaaba sad la socotiin waad ogtihiin asxaabe amba soomaaliyey tira ka 10 jeer waxa calool xumo isu soo daba dhacay waad aragteen wallaahi waan maaragtay maba aan soo qaadanin waayo aad ayaan u tiiraanyooday murug iyo maalin walba calool xumo ma soo qaadan kartid ma ka sheekeyn kartid adaaba naftaadu ay diidaysaa marka saa darteeda ayaanba maaragtay uga daalay soomaalida dheg xumadooda iyo waxa ay maaragtay isku haayaan walaalayaal horta aan u duceyno marxumadaas naga hooseyso maanta waxaan ilaahay uga baryaynaa qabrigeed in ilaahay u nuuro kitaabkeed midigta ka sii anagana ilaahay nooga daba naxariisto gadaashadana ilaahayna ma fidneeyo awalan hadda walaalayaal waxaan maaragtay tacsi ka dambo tacsida intaas hadaan uga baxno wixii ka dambeey tacsida waxaan leenahay maamadaas waxaa dilay bal ila dhageysta wixii dilay bal ila dhageysta gurigan waa cidlo agoontii deganeed maanta waxa ay soo aasayaan hooyada dhashay oo lagu magacaabo Faaduma Cali Cismaan oo ku magac dheer Faybeeso oo askari deris la ahaa oo dhowr xabadood ku dhuftay kadib markay isku dayday inay uga dacwooto askarigaasi sargaalkii uu ilaalada u ahaa sidaasna waxaa ku dhacay dilka xaafadda xoosh ee degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir dhimashada hooyadan waxay ka noqotay mid xanuunkeeda laga dareemay maadaama lagu xasuusanayo hooyadan deris jacayl iyo shaqadii ay u kalihi jirtay gurigan hadda dadku ay hortaagan yihiin waa gurigii hooyo Faadumo oo ah guriga ay deganeed gurigan kale aad u jeedaan oo dhabarkayga ku yeelana sidoo kale waxaa deganaa dadkii dilay hooyadan masaakiinta ah oo korsanaysa carruurta agoonta ah waxay doonaysay inay u dacwooto waxaa deganaa qaar ka mid ah ciidamada dowladda markay u dacwo maagtana waxaa lagu dilay iridaas hore saad u jeedaan oo dhiiggeedu maamada waxa uu yaalaa halkan isla markiiba waxaa lagu dhuftay xabado halkaan ay ku dhacday saas ayay ku dhimatay meeshan waa halka ay ka baxeen marka askarta dilka geysatay ay hubsadeen dhimashada hooyo Faybeeso qaar ka mid ah ehelka hooyada muruqmaalka ahayd ee la dilay waxay ka hadleen waxa ay ka yaqaanaan halganka Faaduma Cali Cismaan waxaan leenahay samri iimaan allah ka sii ehelkeedii laakiin ciidamada dowladda dilaa la yiri oo deris la ahay ilmo yaryar oo deriskeeda ahay ayuu ninku oo qoray maaragtay sidaa ugu qoray ku taagtaagayay amba xabad waxay ku tiri marka maxaad maaragtay ugu ciyaaraysaa ciyaalka amba aad u cabsiinaysaa oo qoraga ugula ciyaaraysaa maxaa kaa galay iyo maxaa iga geli waayay soo maaragtay ciyaal deriska ma ahan way aad sidaa u sameynay ciyaal deriskeeda unbay ahaayeen markiina ayadii waxay ku tiraa layiri ilaa ninka aad ku adiga taliyahaada ayaan ku sheegaa ka dambana saad maqlayseen halkaas ayaa lagu dilay hadda waxaan isweydiinaynaa marka yaa dilay cadowgii waxa cadow ku noqda hadda oo muqdisho cadow ku noqday
oo dadweynihii cadow ku noqdo waa ciidankii loo igmaday inay dadka badbaadiyaan inay wadanka badbaadiyaan cadow ay ka ilaaliyaan ayaga unbaa waxay u noqdeen dhilqa marada ku galay maradaada oo dhilqa ku galay ayay ciidankii nagu noqdeen dadkii maatadii bay eber ka dhigayaan waad ogeedeen labadan wiig oo isku daba xiriirtay siday dad u dilaayeen laba cunug oo islalata laba sida dhalinyaradii ay u dhameeyeen ciyaalkii yaroo saqiirada ahay loo dilayay dadkii kale bajaajka iska saaray layskaga xabad un layskaga maaragtay sidaa loogu harqaamayay hadda maxaa adduunyada sidee maxaa looga tashtaa hadda dowladdu way maqlay 24 saac dhigxumad anaga nagama dhiga yar way naga dhiga dheerta 24 saac wax kasta akhrisata waxna u jeedaa kamana hadashee maxaa looga tashanayaa dowladdu ma mid dadka dhameynaysa mise waa mid dadka badbaadinaysay ma mid wadanka u maqneeda mise waa mid wadanka ceel gelinaysay dhibaato u horkacisay maamooyinka ilmaha agoonta korsanayo ciyaalka agoonta lagu koriyay miyay dib u dhameynaysaa mase waxay ahayd ayaga inay aabay hooyo u noqoto oo wadankii badbaadiso ay maaragtay ayada lagu soo maaragtay haanyoodo amba lagu soo hirto ciidamada waxa lagu yaqaanaa akhlaaqda leh oo adduunka waxa lagu yaqaanaa in ayaga la soo hoos galo la isaga soo dacwoodo hadoo askari qalad gala amba qof kala qarid ka gasho ayaga loo soo dacwoodo laakiin ayagii baaba adiga iska ka dilaayo macna la'aan ayagoon kula hadlin qalad ku sheegan iskaga ka qoryo loo dhiibay iskaga tababarnaayabo dadkii ii sheeg maatadii ku tababarnaayo waxaas ma ilaahay xaqiisa askartu maalin walba way maqlaysaa maxaa la taliyayaashu way ogyihiin maxaa la madaxweynuhu uu maqlaa oo uu maqlaa mid qof kasta oo xil qaaday oo kitaabkan gacanta saaray wuu la socdaa qaladka ay askartooda geysanayso askar aan la soo tababarin dhaqan la soo barin akhlaaq la soo barin kala dambeyn iyo la baraynina inta la iska soo qabto meesha la sagridee ayagoo wada dhiigyo cab la leeyahay haddana qorigan qaati saartin u noolaada oo kii qalad galaba mar walba la marinaynin muxuu ahay wuxuu xaq u leeyahay oo si dadku u dila asigana tiirka loo soo taagaynin hadda qaladku gormo dhamaanaa barbaleenka gormo wadanka ka dhamaanaa dhibaatadu ma soo afjarmayso way sii soconaysaa maalinba maalinta ka daran naxtintan iyo naxtin ka sii xun ayaan maqlaynaa waxa ay ka qabanayaan dowladdu ay gacanta ku hayso maba jirtaba maalin walba dadka caadigana way isdilaan askartin waxay rabtay dishaa marka magaalada waxaa ka jirto maalin walbaba in un la isdilaayo kii midi wato kii qoray wato kii kala wato wax alla wax maaragta kala dambeyna ma jirto dadkan iimaankii ayaa ka tagay iimaanku halgeela ayuu ka weyn yahay laakiin haddii ilaahay kaa qaadi rabo khafiif ayuu noqonayaa iimaankaagu 40 beri ayaa qofka waxaa la yiri iimaankiisa oo khafiif noqdaa markaana wuxuu sameynaya war uma haayo wuxuu dilaayo ma ogo wuxuu qabanaa ma ogo laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa hadda xaaladdu waa xumaatay aad iyo aad u xumaatay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu usha dhexda nooga qabto ilaahay oo ummadan dhibaatada loo geystay dhibaatada ku dhex jirto oo ma garanayna sababta isku laynayaan xaafadihi way islaynayaan wiil iyo gabadhiisa gabar iyo aabaheed waa isdileen waxaad maqlaysaa gabar aabaheed dish waxaad maqlaysaa wiila odaya wiilkiis dile waxaad maqlaysaa wiila hooyadiis dile mucjisadu maxay tahay waxaad maqlaysaa askari hooyo iska dile macna la'aan ku dile nina naagtiis dile naaga ninka dish wardado maxaa jiro intee wax ka socdaan maxaa la idinku soo dhex tuuray maxaa diintu u shaqay laadahay maxaa kala dambeyntu maaragtay u shaqay laadahay dowladnimada iyo maxay u shaqay laadahay bini'aadanimadu maxay u shaqay laadahay maxaa wax walba loogu tuntay oo bini'aadanimada loogu tuntay oo muslimnimada loogu tuntay oo walaalnimada loogu tuntay oo maxay tahay naxariis darrada wadanka ka jirta maxay tahay dadku maxay noqdeen xoolay noqdeen waan yaabanaha anagu dhagihii iyo maskaxdayni waxay qorto ayay laadahay waxa ay sheegto ayay laadahay walaalayaal wadanka ka daayay dhibaatada war haddaad ciidantiin ka daayay dhibaatada dadweynaha aad qorag u qaadeen ood u dhaarateen oo dhahdeen dalkana xuraynaynaa askariyow ilaahay ka baq oo hadina hooyada oo hadina walaalka oo hadina dadkan way dabar go'een ayagoo dabar go'a maxaa sixirka adinka idinku soo duulay oo awalba sixirka idin hay ayaa idinku faafaayo cudurku wuu sii batay wuxuu noqday hadda qof walba qofta ku dhow inay disho maxay tahay subxaan allah war halla duceysto war halla cuudu bileysto war ilaahay ka baqa
war dowladday rabbiga ka cabso war ciidankan aad iyoon tababaran aad dadka kusoo dayseen naga qabta war dadka ka qabta war maaragta dadka isdilaya ha loo wacyigeliyo war culummada ilaahay culumadaynay kaca war culummaday dadka wacdiya war dowladda wacdiya war ciidamada wacdiya war qof kasta wacdiya war dariiqa iska istaagaya wacdi iyo kitaabka iska soo qaata والله علمادينا وعد كما يرو لكن wax aan sameeyna malahan waxa la yiraahdaa la yaabay yaasinka taas ay keenayso waan dareemi karaa in culmadayna inaan wacdi iyo maxaadaro ku yareen ay daaleen war ilaahay ka baqa la leeyahay maalin walbo bal aan isla dhageysana inta dhiman jirtay kulinta agoonta ay dhashay oo barbaarintoda kali ku ahayd لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون الله إلهي وذا وين واحد الله إله وذا وين واحد الله إله حق هذا التس الله إله حق هذا السي الله إله حق هذا صادق الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم الله إلهي وذا وين واحد هي منك تدعى غير كذا أقوم أقوم gabadheeda wiilkeeda ay qabo maamo wanaagsan yahay ilaa xad maamulka degmada macalin madaxweynaha ee wasaaraha kulli oo ummadda oo muslimiinta dowladooda waxaa ku codsanaynaa maamada xaqeeda in loo soo dhiciyo gardara lagu dili ilaaha laga cabsada agoon leeyaheed ilmo yaryar ay u shaqaysanaysa xoogsateed gardara lagu dili wixii dile ha loo soo qabto xaqeeda u baahan taha ha loo soo dhiciyo 9 caruuray guriga ku haysatay awal caruurteeda u shaqaysan jirtay sanadadii hore laakiin hadda 2 sano iyadoo shaqaynayaan ay bartay gurigeeda laga qaymo agoon ay haysataa kuwa kale waxoogaa laba caruur yar oo mid agoon ay haysataa kuwa kale way ka waaweyn yihiin caruurta ayay isu soo ururinaysay shalay ay meesha waa la dhaawacay markaa laga qaaday waan weydiiyay deriska maxaa dhacay waxa dhacay gabadhaasi ilmo yar oo agoona ayaa ninka qorigu ku qabanayay oo gurigeeda hor fadhiyay markaasay soo baxday maxaa dhacay ilmaha qoriga ugu qabanaysa war deriska maxaa dhacay markay tireen qofkii mas'uulka ka ahaa uu sheegay in guriga garaacay xaqada wiilashii guriga ka soo baxay guriga gurtay wiilashiina baasku ku xidhay kadib iyadii baa la xararayba muqdisho waxaa ku soo badanaya dilalka askartu u geysanayaan الله إله أمدان ونحرس رب الرحمن أمدان إله ونحرس إنا لله وإنا إليه راجعون أصحابي وحن إذن رجينا خير بدن فيديو دوك سو غارو سي شير غراي او سي دعاء مرحومه داس إن إلهي المهيدا ماركت قلبي جودنا إلهي ماركت وبدباديو أيجانا إلهي بدل خير قبه هو يدود يا أبوه بدل خير قبه إلهي أوصيه ومدود هو يا أبن إلهي وديجو رساقدود إلهي واسع وديجو هلو سدعيو هلو سي شرقرايو سلوق دعيو waxaad maaragtay ana la duceysto wadanka loo duceeyo dadka loo duceeyo waa ujeedaan Soomaaliya dhibaatada taagan marka meel kasto Soomaaliya ka joogtaan waa inaad wada duceysataan isu duceedaan waliba loo duceeyo Muqdisho dadka joogo aad ayay u rafaadsan loo baabi'ina loo dilaa wax lagu dilaana ma ogo masaakintaas guryahooda joogo insha Allah hadoo video ku soo gaaro daago cusub tahay subscribe like iyo comment qurux badan iga soo bixi سينا الشير قري أصحابتها كل وشير قري سي وهشدوا عبدان أو مارت إلهي أو ونحريستو هذا ظهر إلي جوكتن خير الله كسيو وسي الشير قري سي وهشدوا عبدان سيدو كله لا يجنا ميل في عن بنا جارسينا سي لا قري إن شاء الله وحق سجتنا وقير بدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.